waxaa maanta lagu qabtay Andalus Hotel ee magaalada Nairobi munaasabad loogu magac daray xaalmarinta dadka xorta ee la xumeeyay ee lagu la kaco falalka quursiga ee diiniyan iyo dhaqan ahaan midna aan saliir raatan ku lahayn munaasabadan uu soo qaban qaabiyay Khaliif Ashkir Diine oo u dhaqdhaqaaqa dadka la haybsoco ayaa waxa ka soo qayb galay xubno muhiim ah oo mujtamaca Soomaaliyeed dhexdooda laga qadariyo ka mid yahay Ali Muuse Cabdi Abu Saxaafa Maxamed Xasan Dalyeer iyo culimaadudiin aqoon-yahan iyo dhalinyaro kale ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay xubin ka mid ah Ahlus Sunna wal Jamaaca waxaa kaloo isagu madasha goobjoog ka ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliland ee dalka Kenya Yuusuf Cabdiraxmaan Cabdullaahi Taalaood ugu dambeyntina waxaa xafladda soo afmeeray Khaliif Ashkir Diine oo ah qabanqaabiyihii munaasabadda marka waxaan rabnaa haddii la yiraahdo in qof walba oo Soomaaliya ama Islaam ah qofka kale oo walaalkiisa inuusan yasin al-muslim wa akhul-muslim la yadlimuhu wala yahqiruhu inuu dulmin qofna xaqirinin kitaabka Ilaahay loo noqdo maxaa keenay in la hayb sooco inagu waxaynu nahay saan ognahay dad muslimiin ah muslimiintuna dad kala sareeya oo macna maxalli ama shucuub iyo qabaa'il ha noqotee dad ku kala sareeya ma marka su'aasha isweydiinta la waxay tahay war haddaynu dad muslimiin nahay maxaa inagu keenay ficilkan xun ee runtii la oran karaayo waa ficil aan diin iyo dhaqan midna aan sal ku lahayn oo aad u xun run ahaantii maxaa keenay horta isweydiinta mudan su'aashaas markaas taas marka la helo ee cudurka la helo waxa uu yahay ba waxa la helaa daawadiisa barnaamijkan maanta aan ka hadlayno magaciisa waxa yiraahaa xaal marinta walaalaha la xumeeyay magaca laftiisa ayaa macna ku fadhiya awal waxa la oran jiray وهيلنت dadka la qoorsado qoorsigu qiilma leeyahay waxa soo dhan waxa ahayn wax la soo maray oo wax badan baa laga sheegay laakiin iyaga ruuxada waxay muujinayeen in wali la eedeynayo xaal marinta walaalaha la xumeeyay macna ileedahay waxa iyagu eedeysanayaal ma ahaane inaga inteena kala eedeysanayaal marka iyagu waa dadkii la sharfahayay oo laga gardaraa oo soo jeedinayay inaguna waxaan dadkii walaalahood ku gafay oo xaal dhowray barnaamijkan oo loogu magac daray xaalmarinta walaalaha xorta ah ee la xumeeyay ayaa waxa uu socon doonaa ilaa inta laga gaarayo hadafka laga leeyahay Ali Ismaaciil Ali Home Cable TV Nairobi